اوكي magacaygu waa cabdishakuur shaashaha wareegana barnaamijka sooyaalka nolosha ee TV-ga RTN waxaan uga warrami doonaa sooyaalka nololeed ee indha qalbi oo ah gabar aragala oo dhiirigelisa dadka aragala والله سيفي عم حسيت لكن تلفون ما شاء الله قرح بدنا وصار له كلا فراي tani waa sheekada sooyaalka nololeed ee Fardowsi Cabdulle Maalin oo lagu garan og yahay indha qalbi وأرضيت أجدد البدن فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون حتى دري تيك توك مانتي إلى جوجا شاشة وريها RTN halkani waa RTN waxaan ahay soo jeediyaha iyo soo saaraha barnaamijka sooyaalka nolosha magacaygu waa cabdishakuur shaashaha wareegana barnaamijka sooyaalka nolosha ee TV-ga RTN waxaan uga warrami doonaa sooyaalka nololeed ee indha qalbi oo ah gabar aragala oo dhiirigelisa dadka aragala tani waa sheekada sooyaalka nololeed ee Fardowsi Cabdulle Maalin oo lagu garan og yahay indha qalbi ahna gabar aragala oo dhiirigelisa kuwa aragala iyo kuwa araga qaba intuba waxay isticmaashaa telefoonada caqliga leh waxaanay ku isticmaashaa aaladaha baraha bulshada sida TikTok, Facebook, YouTube iyo waxa la midka ah Facebook page, heading, event, notifications, 20 plus new inbox, 20 plus new tab. In progress, page, tab, Raxon Candy, Raxon Jen, Available, DG, Abdullah E6, filter, Abdullah E6080, Abdullah WCS sorting Maxid item update, C, Cafe Map KWRN. xilligan waxay aqrinaysaa oo ay ka jawaabaysaa qaar ka mid ah fariimaha falcelinta ee saaxiibadeeda ay ka bixiyaan aaraahda ay ku daabacdo bogogeeda ee luuqadda baraha bulshada lagu yiraa boostiska iyo commentiga inay telefoon isticmaasho kuna dhiirato isticmaalkiisa waxa eebba ka sokow ku dhiirigeliyey walaalkeed oo ka xumaaday erayo ayaan maqalkeeda jeclaysan oo ay ku dhaheen gabdho ehelka ah xilli ay ka codsatay inay u dhiibaan mobil ay iyagu haysteen waxa xasuustaa mana iloobi karin wuxuu ahaa telefoonka ugu horeeyay qofkii ugu caawiyay walaalkii hooyadii dhashay Cali Cumar walaalkaas waxay ahayd telefoon loo yaqaan Nokia ahaa maxaa la sheeg waa lagu daadsanaa xilligaas camera lahaa marka banaana joog 310 meel dhigi كيسده بقول تبون كم واحد ولا سيفي عم حسيت لكن تلفون ما شاء الله وقرح بدنا وصار له كلا فراي سنان على كلا فراي مركا maxaa telefoonka saaraba markaas gabdhii way ugu qoqosleen meesha fadhiyeen markaas maxay u qoslaysiin si ku fahmay kuma ma u jeedin telefoon u jeedin aday wax kasta waaraba baati asoo gadinays ma umaleesaa ay gudeen aboowe wuu maqlay wax ma idhihin wuu baxa telefoonka uu soo gada casirkii markaas waxa dhahay aboo ani ma fahmaa maxaa igu soo gaday markaas waxa dhahay muu dul qaadan kar in lagu dhahay ma fahmaysid iska heesa hadaarabtid saano ilaa inta soo fadhiiso kan number 2 waa kan number 3 waa lambarkaas isku xigaan kan number 3 kan number 1 kan number 2 waa ibare memory oo isoo galay maxay dhaha dhaxda taabo ko labo saddex hoos tiri dhaxda ku dhufo saas u geeyna shidooyinka wixii oo dhan oo ibarbare sida lambar u qorto ibare heera gaaray in amas maxaa la sheeg inta tirsado lambarka ah xisaabsado lambar d maxaa lambar 2 maxaa ku jiro intaas xarfaha ku jiro ah xisaabsado oo afariin ku qoraa gaaray niclaha waliba anigoo arkeenin
alxamdulilah. The map Lucidity 2D. Item 1. Comment underscore. Line. New replies. Smart underscore. Line. Self. Ellen Akashafo. Gagabudi Ayasha Unified. sidee bay suurtagal ku tahay in Fardowso Indha Qalbi ay ka jawaabto fariimaha codeed iyo qoraaleed ee loo soo diro? sidee bayse ugu suuro gashaa inay duubto muuqaalo? waa su'aalo aad isweydiinaysaan idinka hadda daawanaya sheekadan iyada ah. aniga qudhayda ayaana horay isu weydiiyey. horta dad badan ay weydiiyeen qaarkood markaa social media isticmaalaya ama fiidiyodeeda arkaan waxay dhahaan indhoolo ma aha caan raadis waay gabadhan. sababta ay dhahayna waxaa keenaya umaleynaya hore ma u arki jirin qof aragala oo isticmaalayo social mediaha, marka waxay maleeyaan inuu qof ii isticmaalayo, laakiin alxamdulilah waagaas waa laga soo gudbay. hadda waxaa jiro telefoon aan cod leh, telefoonka xaraf alla xarafka taabito uu ku sheegaa, waxa qorta asaa ku sheegayo, wixii lagu soo diray asaa ku sheegayo, magaca qofka asaa ku sheegayo. waxa kaliya oo ii sheegayni waxaa waaye maanta haddaan video adi leedahay aan daawado shaashaa wejigiisa saas uu egyahay bisuusan idhahayni ma ahane waxa kaloo dhan maasha allah garab uu igu siiyaa asaa iga caawiyo, telefoonka iga caawiyo. telefoonka wuxuu ku hadlayaa luqadda ingiriisiga aad iyo af Soomaali kuma xirna aad iyo qofka fariinta uu ku soo dirana fariimo toosan aqrinaysay oo af Soomaali ku qoran sidee bay kugu suura galeysay? والله بعد رفات كدب يعني واجي هوري مركز ناقة تلفون كإنجليش كأيدي جبيني سلوقات الصومالية ما فهم جري مركز وحاسمين جري PDF الصومالي أصودك سدي مركز أنت تابت ناقة وحي شيء كيس أنا ما أنت فاهمين وقت كان جرت تصالح حالة دوكلة إكسالة ده XLD كده ما كده سو لا ده ما كده سو dhib badan kadib alxamdulilah waa bartay af Soomaaliga way jijibinay English laakiin caadi oo akhrinay Carabiga mobilka caadi oo akhrina xataa waxa mobilka ugu jiro Qur'aan caadi ah oo maxaa la sheeg naagta hadda igu hadash English ka kale igu akhrinaysa ayadana Qur'aanka ku akhrinaysa saa u sheegay telefoonka wuu hadlaa telefoonka cod oo leeyahay maanta wax rab inaad duubo meesha aad taabanaysa ay sheegay shoulder video dir video ganjar video qurxi فيديو waxaan ku sameeyay wax dhan asaa ku sheegay ma aqaan qof caadi hadda adi ina fiirinaysid oo inta taabin idaysa amal waay xogaa maxay ugu yar adkaatay marka fiideo duuba ina si fiican isku aadi in kale ina stylekeyga saxan yahay in kale horta marka hore ana si fiican isku saxa marka soo hor istaaga kaamirada iska dheereena waa hadla marka duuba kadib oo color fiican saarto waxa la dhigi doonaa color fiican u saaranay almuhiim waxa ay xisaabsan kalarada midka oo dadka cadaan ugu dhigay midka kale iyo waxaas dhan way xisaabsan yihiin lambarkii markii hore la ii tusiyaa taabana kalarkiisa quruxda markuu ii tago kale waxa u geynaa qof xada fiidiyoga si fiican ma u saxan yahay hadoo dhawa gelina marka qaarne waa iska geliya inta ugu badan waa iska geliya qof batusina marka arkay ina xooga aniga aad toosanahay qofna u baahnaa aniga markaan kula soo xiriiray oo aad ila hadashay ka hor intaan kula soo xiriirin waxaan kugu arkay TikTok markii aan wada hadalnay oo balantii ugu dambeysay inaan ku imaan markaan ka codsaday ayaan ku iri codan ku soo duubi doona markii aan markaas waxaad igu tiri xitaa fariinta waa ii soo qori kartaa waa ku xantay waxa ay qoftaan indhaha mala'a waxaan rabaa turka go'aad inay iga cafiso xantaas runaantii anoo hadda kula taagan ayaan arkay sida aad u isticmaalaysay waana aaminsanahay laakiin qofka marka ugu horeyso oo loo sheego la yaab ay ku noqoneen anay u noqotay waa sababaha aan u xaqiijinayay inaan shaqadan ka sameeyo oo aan umada la wadaago marka koodu iga cafisay waxantaas akid iyo qof walbo Soomaaliyeed maaha adi bis qof walbo Soomaaliyeed oo isdoo gabadhan wax ma arkayso macaani ku raadinahay isdoo ama si kala ha u yaabo wax qof wax u haysta malahan kulli cafisaygiin bulshadeeda laakiin waxa uu sheegayaa tusaale marka la yaabtid wax يعني waxa isdaaday hadii dadka dhan adii hadda kula fadhiistay uma qanci kari dad maxaa laga yaabaa biri aanan arki karin fiidiyogan ama arko qeybahan dambe xataa ka maqlay ama fiideo ani laayahay aadaw dadkaas oo kale mar walba waxa jeclaalaha markay arkaan wax la yaab aan tusaale markay wax cajab galiyaan Google ka u carraa ala tool waxaas ma jiraa qoraa wixii hadday jiraan iyo wixii hadday jirin maxaa joogo macallin Google asaa wax dhan soo saaraay hadda Google ku qortid sidoo qofka indhoolka wax u qoraa oo bil English ku qortid horo kaaga soo booda qof indhool dad maxaa arkaysaa indhoolayaal wax qoraay dad indhoolayaal wax aqrinayo sida ani maanta wax iga duubeysiin dad hore wax looga soo duubay oo ku jira Google ka iyo YouTube ka marka waxa la yaab bulshadeeda ayadana
حبارتو Geary Magic. Kuwan maxaa ku dhacay? خلاص way saaroosan miya Photo. Image map. Ahmed Hirsi. Hambalayo. Ahmed Hirsi Oled. Link. Hambalayo Mugi IOS. Ahmed Hirsi Oled. IO Dumish Nature Abdullah Yamiku Giana Gukia Georgiana Geary Magic. Hambalayo Mugi IOS. Ahmed Hirsi Oled. IO Dumish Nature Abdullah Yamiku Giana Gukia Georgiana. marka laga soo tago nolosha baraha bulshada Fardowsa Indha Qalbi waa ardayd ku jirta macad ay ka barato xifdinta quraanka iyo qiraa'ooyinka waxaana ku booqday macadka xilli ay socoto xiisadeeda waxa ay hadda ka baxaysaa quraan waxaana ay uga baxaysaa macallin qudhiisa aragala sideeda oo kale balse ku dhiiraday inuu isna ka miro dhaliyo hamigiisa ahaa inuu noqdo macallin فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين macallinka aragala ee Fardowso ayaan qudhiisa weydiiyay xifdinta quraanka assalaamu calaykum macallin soo dhow anigu horta waxaan ka mid ahay ardayda macadul iqra horta hore uga qalin jebisay heerka ijaazadana maxay ta gaaray alxamdulillah ilaahana ku mahadsan haddana waxaa ka mid ahay macallimiinta macadka ee duruusta bixiso waka way ka waran bal adiga iyo Fardowso waxaad ka simantihiin xagga aragga qofka kula midka ama idinla midka ah sidee u fahmaa duruusta la bixinay horta dadka hadda halkan ma yaalan boor iyo isteeli waxay yani wixii looga talagalay qofka aragga la laakiin juhdi waxaa ku bixinaa in yani qofka tusaale baahi gaar ah qabo aan wax fahansiina inta maxay eeto karaamkeena ah qofkana ilaahay wuxuu siiyay yani hadduu aragga ka qaaday wuxuu siiyay maxaa la dhahay qalbi meel hadday kaa maqan tahayne meel kala dheeraad ku ah yani qalbigiisa ma sha Allah qofka aragga la zayd u shaqeynaya hadduu dadaalo horto juhdina kale waxaa lagu bixinayaa qofkii baahi qabo inuusan yani baahidaas dareemin aan maxay to muhiimadda aan siinaa qofkii yani Fardowsa iyo aragoo kala la yani waxaa looga sheegayaa yani inuu qof qalbi ilaahay uu siiyay oo wax baran kara oo yahay hadduu xaqiiqadiis qof ka fahmo marka waxaa fudud inuu yani horumar gaaro afudud marka Fardowso kalena ma sha Allah ayadaabo ilaahay yani qof wax fahmayo dadaalayo ma sha Allah oo ka dhigay waa qof dadaalayo yani duruusteeda ka adag ma sha Allah ardayda dhan kullayba kama duwana ardayda macadka ma sha Allah dhinaca kale si aan wax badan uga ogaado xaaladda Fardowso maamulka macadka ayaan weydiiyay su'aalo la xiriira waxbarashada Fardowsa iyo waxa ay uga duwan tahay ardayda kale ee aragoodu taamka yahay magacayga waxaa leedahay xasan sheekh cumar abubakar halkan macad iqra xaruntiisaan waxaan ka ahay maamulaha xaruntaanaan ahay isla markaana maktabka ama xafiiska aqbalaada ardayda iyo qoritaankeedana anaa jooga shaqadaan macadka ahay intaas waaye Fardowsa waxay ka mid tahay ardayda macadka wax ka barata waa ardayd aad u dadaal badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaal fara badan u geliyey markii la fiiriyo baahiyeeda gooniga ah iyo baahiyada gaarka ay qabto iyo si u dadaalayso aad bay u kala fiican yihiin marka waa qof dadaal badan waxbarashaduna fiican tahay fasalka ka tirsan tahayna si fiican wax uga barato ka waran marka laga hadlaayo xagga fahansiiska iyadii ardayda maxay ku kala duwan yihiin جزاك الله خير طبعا waxaan dareemaynaa qofku markuu baahi gooni ah qabo oo waxaysan ardayda kale la qabin uu qabo way saameyn ku yeelani laakiin maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka fududeeyay oo ilaahay u fududeeyay dadku inay fahmaan baahidaha hayso way saameyni laakiin quraanka waxaan inta badan u cuskanaa inay
qofka noocaas kale qur-aankii la dhegeysiiyo lagu celceliyo uu fahmo marka culays wuu jirayaa haysanayo qofka laakiin dadaalka iyadu samayso iyo macallimiinta ka dadaalaan markii laysku daro way ardada ayay ka mid tahay fahamkeeduna wuu fiican yahay qur-aankale si fiican bay u barataa marka wax culays oo gooni iyada hadda fahamkeeda saaran ma jiro wax gaara qalab gaara oo aad wax ku fahansiisaan miyaa jirta jazaaka allah khayr duruuftaas waxaan umaynaa waxaan la qabnaa inta badan dalka oo dhan macadku male wax qalab gooni oo dadka baahyada qaba loogu talagalay male dad badan oo ayaga ay ka mid tahay baa macadka qalinjabiyey oo qaarkood hadda macallimiin ka mid yihiin oo laga yaabo qaarkood hadda fasadooshaana walasan doontaan marka ma jirto qalab gooni wax ku barno laakiin waxaan u ictimaadnaa ama waxaan wax ku barnaa inay qur-aanka la dhegeysiiyo qofka hadduu jaanis la xataa intii la duubo uu soo dhegeysan karo ardayda ay caawiyaan macallinku uu caawiyo carabki loo soco markuu qur-aanka ku celceliyo uu fahmo markaa uu soo diyaarsado kadibna uu maalinka dambe cashigiisi uu ka baxo subciisii dareeriskiisina uu sidaas uu ku sii wato ka waran si gaara ood ula macaamishaan miyaa jirta dadka fardowso la midka ah mise sida ardayda loola matacaamilo ayaad ula dhaqantaan jazaaka allah khayr waa laba qaabba way kaga duwan yihiin dadka iyadoo kale ah fardowsoo kale ah dadka macadka dhigta fiiga ama kharashaadka macadka lagama qaado dadka noocaas kale ah oo macadku maadaama uu dadka iyo diintooda u shaqaynayo qofkii dee bahay gooni ah qaba duruuftaas in laga caawiyo walow fardowso ay dalbatay iyada inay ay waxay iska bixiso si aan loo dareemin in la caawinayo laakiin u dambeyntii annaga waxaan ku nidhi nidaamka naga dhigayo wax lacaga markaa qaadi karno marka dadka qaybta way kaga duwan yihiin fardowsa ayaan iyana markeedii weydiiyey wixii ay kala kulantay macadka iqra markii ay u sheegtay inay doonayso inay ardayad ka noqoto iyada oo aragla markaa tegay runtii aad ay soo dhaweeyeen si diiran alxamdulilah waxaana ba jirtay arday iga sii horeysay oo meeshaas ka qalin jebisay macallimiinna ka noqotay oo dadka aragala ka tirsan maasha allah si qurux badan oo ii soo dhaweeyeen hadda madrasada dhigtaa waxaan rajeynayaa ilaa heer jaa'iza inaan ka qaato ilaa aan ka barto 10 qiraa'o insha allah hadda xagee ka maraysaa qur-aanka wallaahi qur-aanka hore waa u dhameeyey laakiin meeshaan waxaa laga barto waxay tahay in lagaa saxo tadbiiqa qaabka u aqrinaysid tajwiidka يعني maxay iga soo bilaabeen hoos iga soo bilaabeen hadda waxa maraya suurta dukhaan waa kaas ah fardowso indha qalbi waxa ay si maalinle ah u duubtaa muuqaalo xambaarsan fariimo wacyigelin ah oo ay kula hadlayso Soomaalida waxa aan weydiiyay waxa ku dhaliyay iyo xilliga ay bilowday sameynta muuqaaladan wacyigelinta ah ina horta muuqaalo sameeyo waxa ka horeysay in aan isugu jiray markaa yaraa hal qof oo idhiira geliyo dabadeedna ma heli jirin qof idhiira geliyo ma heli jirin waga aad ku yaraa guriga ku xariisnaan jiray iska daa in aan telefoon isticmaalay xataa niicla sidoo yahay ma aqoonin maxaa la magaciisa ii sheeg nolosha dhan waxaan ku xirnaa hal qol that is why maalintaas waxaa jeclaa inaan arko qof aniga camal ila mid ah oo i wacyi geliyo oo idhaho maxaa la sheeg wax baro ama qof caadi hataa oo idhaho wax baro markii aan waayo qof aniga ila mid ah oo wax baro sidoo kale waxa waaye qof caadi ah oo dadka indhaha qaba ka tirsan qof caadi maxaa ka wada aniga hataa caadi ahay maxaa ka wada dadka araga qabo indhaha qabo kuwaas hataa ma i wacyi geli jirin marka maanta waxa isleeyahay ama jirtaa qof adigoo kale waagaaga sida ahaan jirta qof ama jira oo markay ku aragto adigoo wax qabanaysid adigoo hool qabsanaysid adigoo telefoon isticmaalaysid ku dhiiranayo in uu maxaa la ii sheeg asna sidaadoo kale noqdo oo wax qabsado dad badan oo soo martay wacyigelinta markaa sameeyay ma sha Allah dad badan oo aragala ay la soo xiriiro dad oo naafa ay la soo xiriiro kale marka inaan sameeyo saasa ay u dhalisay waxaan soo maray oo aan isleeyahay ama qof kasta ku jira xaaladaas kana jooge ya tixsi taqsiim ku sheegaya mobile taqsiim ku sheegaya toddoba sano iyada oo jirta ayay araga weysay waxa lumay inay wax barato muddo ayaana guriga lagu hayay balse si ay uga soo baxdo noloshaasi madow
waxa ay samaysay isku dayo badan oo ay ku doonaysay inay wax ku barato una dhaqanto sida ay u dhaqmaan kuwa wax arka iyada oo adeegsanaysa kartideeda. walaa horta la'aanteed hooyo wax ma noqdeen inkastoo hooyo tahay oo hooyo aad u naxariis badan tahay ee waxyaabaha qaar aad kugu diideyso haddana maanta booska taaganay siiba dhanka social media markii la dhaho hooya garab igu siisay maxaa yeelay waagayga hore waa aqaanin in wax la qoro laakiin ma garan jirin sida telefoon loo isticmaalo ma garanin sida computer loo isticmaalo xilligaa waxaa joognay dalka Uganda marka waxaa ku dhahay hooyo waxaa rabaa in aan barto computerka aan baranayo wuxuu jiraa wadanka Kenya Uganda laba wadan kale yihiin gabar in dhoole ma ku fasaxi kartid wadan kale inay aado sida bulshadeena Soomaaliyeed maalintaas hooyo waa ku dul ooyay waxaana ka codsaday in ay fasaxdo in aan wax barto qof Nairobi iga soo horeeyay ma lahayn oo aanan ahayn iskuulkaas iyo macadkaas alxamdulillah macadkiina iskuulkiina hooyo way ogolaatay in aan aado oo wax ka soo barto ayadoo waliba ii walwalayso marka hadda wareysto way waagaas ka warna marka dhaw waxay dhigi jirtay marka soo xasuusto in aan ku fasaxo marna waan shalaan jiray marna waa ku duceyn jiray mar walba walwal dareema la warka aad tukan jiray waa ku duceyn jiray alxamdulillah waxaa joogay iskuul kaliya ay joogaan dad gaala ah oo muslim joogin laakiin alxamdulillah maanta waxaa ka soo bartay qaabka wax u qori lahaa qaabka wax u isticmaal lahaa qaabka maxaa la ii sheeg computer u isticmaal lahaa alxamdulillah hooyana madax ka ahayd inaan barto ku soo dhiirado mararka qaar in qalbi waxa ay la kulantaa kuwa qalbiga ka jiran oo mooda in ay wax wanaajinayaan balse dhaawaca qalbiga qof kale kuwaasi oo haasaawe ama shukaansi doon ah Fardowsa ayaa u sheegta kuwaasi wixii ay mudnaayeen waxaana ay ka digaysaa in hadallada dhaawici kara quluubta aadanaha aanan lagu oran dadka dhalinyarta fariin u gudbinaya dhalinyarta oo aniga camal dhalinyarta oo dhalinyarta macnaha markaas uga adkaysanaya maxaa waaye fariin adaga u gudbinaya waxaa jiro inuu maanta gabar inaafa ah tusaale ani wiil ay la soo hadlay alxamdulillah dad rag badan oo fiican waa arkay laakiin inaan kula soo hadlayo wuxuu ku dhahayaa asoo u malay in uu ku wanaajinayo oo wuxuu ku dhahaa walaashay ma sha Allah saanata wuu ka helayaa ilaahay dartiisa ku guursanaa hadda ka horna riwaayad waa ka sameeyay maanta marka shaasha hadda inta ay la soo hadashid ay ugu dhahay ilaahay dartiisa ku guursanaa mis adaab indhool aniga kula soo hadlo waxa ku dhacda ilaahay dartiisa ku guursanaa ama ilaahay dartiisa ii guurso saa ajirkaaga helo farxad ma dareemaysaa ma dareemaysid culays aad dareemaysaa okay maxallaha magaciisa sheeg mise qaab kale lagu soo galaya in waxa lagu dhahayaa nooc kale hasaawi dadka maxay u fahmeen wax qiire su'aal maanta video hada sameey videoga ay sameeynayo oo aan gahala ilaahay dartiisa waxa ila soo hadashay milyan rag Soomaaliyeed oo kuligood qiireysan waxay u sameeyaan maxaa waaye ma fahmin marka waxa la yaab bulshada hadii aad ka heshid gabar naafa ah nuucirtaan noqoto dhagaha la'aato lugaha la'aato curiyaan ha ahaato ani mar walba waxa bulshada uga hadlaya wax kasto qalbigeena dhaawacayo nuuc cirabaan ha ahaadaan waxa jeclaa in aan ka hadlo marka waxa leeyahay sheeg bulshada wiilasha dhalinyarta waxa leeyahay adiga waxa ka heshay gabar naafa yaa qey wadada gabdhaha kale u martid umar okay wadada gabdhaha kale u martid umar saa wala sameeyay wala sameey haday ku aqbash fillaah alxamd hadaysan ku aqbalin fillaah alxamd hadaa tahay wiilna gabar naafa gabar caadi hadaa tahay oo wiilna fash ku asanaysidna sidoo kale ayaan leeyahay ehelkana waxa leeyahay maanta gabadha markay soo roonaato wax barnayso waxa lagu dhahaa iska guurso cunug aad dhashid waxaasna waxa leeyahay bulshada ha laga daayo gabadha iyo wiilka qof walbo waxa ka shaqeysta maskaxdiisa waxa leeyahay bulshada waxaana bulsho adinka in la simananahay waana nacba dadka liido dadka haliidina qofka ku doorta kirtidiisa diintiisa iyo akhlaaqdiisa cidna gacmaha kuma dhagana waxna ma aragto oo iyada ayaa iswada waxana alla uu araga u galiyay qalbiga taasi oo sababtay in ay qaadato naanaysta ah indho qalbi wallahi magac kale ka horeeyay wuxuu ahaa Fardoos Indhoole indhoolena wax kale ma u baxsaneen horta maxaa arkay waxa tahay Fardoos maanta waxa tahay indhoole hadii aan magacaas la baxdid dadka sidee u arkaan ma liiditaan u arkaan ma nooc kale u arkaan tijaabi magaci markaa qortay maxaa la magaciisa sheeg dadka Facebook igala soo xiriiray asxaabtii ehelkii dadkii ugu xirnaayo dhan waxay dhahaan adana wacyi gelinaysa dana adaa magacan qorinaysa adaa saan qorinaysa adaa kan qorinaysa qorsha ka dan lahaa oo ah in aan fiiriyo dadka inta ugu badan sidii aaminsan yihiin fikradahooda markaa helay marka waxaa jiray wiil isticmaala social media dhanka Facebook mar walba ila soo xiriiri jiray markuu ila hadlaa mar walba wuxuu dhahaa indho qalbi
indha qalbi markaas waxaan dhahay maxaa jeclaa lahayd in aan ku rumeeyo riyo aan ku rumeeyo ma jeclaa lahayd marka waqti kadib asxaab aan ahayn marka wuxuu igu yiri waxaa jeclaa lahaa in aan isku bixisid indha qalbi magacaas marka waxaa dhahay maxaa igu doortay muxuu dhahay waxaa ku arkaa in aad tahay inaad qalbiga indha ku leedahay saas daraadeed u qaatay wiilkaas anigoo tixgelinayo magaci kadibna waan ku qancay bulshada Soomaaliyeedna way jeclaatay indho qalbi qofna ugama baahna inay barbar socoto laakiin eebe iyada ayuu u fududeeyay inay meel walba tagi karto alla ayaana u ogolaaday arrinkaas waxaan isticmaalaa usha cad dad badan guriga kale hadda marka joogo kale usha kuma socdi guriga marka joogo qiyaastii iyo wax walba waa bartay soo ma ku soconay laakiin banaanka riski badan ajir waagi hore waa nacbaa jiray usha waa ka faani jiray min jeclaan jirin laakiin alxamdulillah marka maraan tagay Nairobi oo aan galay qeyb dadka argala wax lagu baro computer iyo waxa lagu baraa maxaa lahaa magaciisa isheeg qaab qofka oo u noolaa lahaa waqtigaas la soo baray sida usha loogu socdo marka hadda waan bala qabsado la'aanteed ma socon kari usha la'aanteeda ma socon karin meel alla meesha taabana iyada ku socda alxamdulillah waa kaasa usha cad ku socda waxa ma jirto tiro wax aad tirsato ma qiyaasee ku socota meel aadis tusaale hadda gurigaaga iyo dugsiga masaafo isu jiraan waana u lugaysaa see ku tagtaa والله وحنا ما ترسدي لكن الحمد لله مركي الله حنا وشعور بقى يقول صدقت إن الله حنا أو بس كذا مركا جارو مدة كلا وحال حساب صدا لولكو كلا ميشان وكلا هذا ميله قار بعد زائد واي ميله قار ميل وضع توصل واي ميله قار رجح حبرنا في صدا رجح هذا ميله وبدينهين إياه لولك هذا بس يدو يهاكو حساب تمام بس كي مركي لجارن الحمد لله واضر ما إنا ماشي جاري أنا هذا حاسك صور عني قل كي القرآن كو آخر ميس صح كدبنا waxaan soo galnay xafiiska anigoo ku garab socday kuma ma hadlin kuma leexinin adaa toos xafiiska ii geeyay sidee kugu suurta gashay walaa markaas u laabowatay laakiin madrasada dhexdeeda ana ul wadina ku socon karaa maxaa yeelay waa bartay waa ku socday aniga horta sideeda marka meel baranayo ma fadhiistay marka meel ku cusbaho kale macallimiinta koo marka madrasada tago kale waa wareegsan jiray aad u socon jiray waxaan u sheegay inaan meelaha rabo inaan kala barto tusaale kale meelaha igu durursan maxaa office-ka ilaa maxaa la ii sheeg maca qolkayga dhanka suuliyaha iyo maxaa laha magaciisa sheeg qaabka u aadi lahaa sidoo kale waxa ay daran meesha cabitaan ka soo gada lahaa iyo waxyaabaha u baahanaha asina madrasada ay ku dhax taalo meelahaas oo dhan waa bartay markii hore dad ay raacraac jiray marna u sheeda ku socon jiray alxamdulillah aad oo la qabsaday cunnada iyo cabitaanka gacmaheeda ayay ku samaysaa intii aan la joogayna waxay inoo soo qastay liin bambeelmo si wanaagsan dhadhankeedu uu dhadhamayay oo ay iyada gacanteeda ku samaysay iyadoo aan cidna uga baahnayn garab cunto waa kariyaa cuntadana aad qiyaasa ku kariyaa oo maxaa lahayd magaciisa sheeg qiyaasa ku kariyaa digsiga dabka saarana saliideeda waa soo qiyaasana wixii waa soo qiyaasana digsiga alxamdulillah yaale qiyaasna baa ku kariyaa waagi hore aad ay igu adkeed maalintii ugu horeysay oo baranayay jikada waalidkayga waa ka dhuuntay waa xasuustaa gacanta ka gubtay marka aad ay igu qeyliyay jikaha galin soo ma ku dhihin ha isgubin soo kuma dhihin kadib gacanteedii maalintaas waa iska aamusay laakiin waqti kadib haddana waxaan gaaday cid oo guriga ka wada baxday guriga markii keligay la iga tagay haddana ani keligay cuntada kariyay alxamdulillah maalintaas markii cuneen qado macaan badan ay cuneen oo dhinac ceerinka dhinac biseelka ahna way iga ogolaadeen inaan markii dambe jikada iyo ogolaadaan hooyana garab ay igu siisay inay cunto karis barto falilaahi alxamd ugu dambayn indha qalbi waxa ay fariin iigu soo dhiibtay inaan ka gaarsiiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dawladda waxaana fariinteedu ay ahayd sidan walaahi bulshadeeda dhan waxaan u dirayaa waan kala saarayaa horta bulshada iyada isku jirtaa laakiin waan kala saarayaa waxaan kula saarayaa marka ugu horeyso dadka wadanka magaca ku leh dadka magaca ku leh waxaa ka wadaa dadka ganacsadayaasha culimada dawladda kuwa fariina u gudbinaya fariinta u gudbinaya waxay tahay in qofka markuu naafo yahay wuxuu u baahan yahay bulsho waliba bulsho yar uma baahna wuxuu u baahan yahay bulsho garabsiisa u baahan yahay
hadday noqoto dhanka diinta iyo hadday noqoto dhanka horumarka inay culimada naga soo dhisaan hadday noqoto maanta aan u baahdo maanta aniga maanta waxaa haystaa shahaada gacanta igu jirto horumar aan gaaray tusaale PhD haystaa laakiin shaqo ma haysti marka taga goobaha ganacsiga waxaa la arkaa aslan qof liito oo waxba qabsan karin that's why shaqadii ma laga aqbalayo hadaa maanta waxaan ahay qof computer isticmaali karo oo maxaa la sheeg office fadhiisan karo wax qori karo markaas waxaa ma laga aqbalayo shaqadii waxaan u tagaa goobo dawlad tagaa shaqo ma lagu siinayo tusaale qofkii wuxuu bartay laftirkeeda dadka naafada waxay u baahan yihiin siyaasadda dhinac inay ka galaan accept fi amal siina inkastoo alxamdulillah dawladan hadda wax badan ay bedeshay ee jirto barnaamijyo badan oo ku soo biiray dadka naafada hore u haysan jirin ay jirto hadda ka hore waxa arkay gabar dhayso maxaa la sheeg dawladda farmaajo waxa laga bartay in dhool xafiis fadhiyo ee leedahay videogaas inaan reaction ka bixiyo arabi laakiin ma ii suurtagelin marka waa ugu mahad celinayaa dawladeena dadaalkeedana maxaa la horaa u sii wado waxa ii soo haray bulshadeena caadiga ah bulshada hooyo iyo aabo كو فمن انتو كاس اسماء هوي ابو كاس اسماء هوي ابو waxaan leeyahay caruura dhasheen caruurta dhasheen hada adinka ka dhigteen inay naafin yihiin ee nolosha ka dhaceen runtii waxba ma qabsan karaan maanta hadii la dhaho jika hada gelin gabar hada ahay wiil hada ahay hadii la dhaho banooni ha soo cayaarin banaanha u bixin ha soconin waa dhacee waa ku fee waxa hubaal qofkaas inuu noloshiisa horumar gaareen wax kasta hadee noqoto hatta haduu gaaro wuxuu dareemayaa cabsi badan marka hadaa adiga soo yar soo asaastid oo dugsiga geesid marka quraanka soo xifdiyo iskuulka dadka indhaha la ku dartid wax ku soo barto haduu qof kale naafiyay ama qof dhagool u yahay asnaata waxbarashadiisa aageesid hadhow wuxuu noqonayaa wuxuu la qalin jibinayaa ilmaha hadda fiiri aniga 24 sano jira ficay saacada mar jaamacada meen naawan baranaya maxaa la dugsi sare wax u dhigma ama waxa baranaya ama xada baranaya marka maxaa leeyahay dadka waxbarashada yaa laga daahinin bulshada naafada ay soo horta ee kana waxaa leeyahay wax walba halin dhaho darbi kasta halin hor keeno laakiin caqabadaha u joojinna kana dhidhiya wax kasta culays u aragtiin maanta duu nin ilo ilaa dirta ku guursana indhaha u shidana ma ka ogolaana inuu saas idhaho hadii maxaa la magaciisa isheeg qof iimaado oo idho anoo duur taagan ama maalin jid anoo jid taagan qof iimaado oo idho waxa ku sadaqaysana ma ka ogolaana inuu wax u sadaqaysto laan aan sadaqa ma baahan dad u baahana jiro wax ku sadaqaysto marka haduu idho qof wax ma qabsan kartid waxa tusina awoodeeda inaa wax qabsan karo marka waxa leeyahay dadka naafadana awoodina tusiya bulshada inaa wax qabsan kartiin tusiya waxbaha isliidina adinka ayaa ah madaxdii biri waana jeclahay bulshadeeda Soomaaliyeed dhan hagaag waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka Sooyaalka Nolosha ee TV-ga RTN magacaygu waa Cabdishakuur Shaashaa waxaan filayaa inay idin gaartay fariintayna qalbi oo aad gaarsiin doontaan ragga iyo dumarka aragala ee isdhigtay ee mooda inayan dunida wax la qaybsan karin barnaamij xiga intaan ku kulmi doono aniga iyo bahda igala qayb qaadatay oo uu kamid ahaa Xasan Baashi waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh magacaygu waa Cabdishakuur Shaashaa wareegana barnaamijka Sooyaalka Nolosha ee TV-ga RTN waxaan uga warrami doonaa sooyaalka nololeed ee indha qalbi oo ah gabar aragala oo dhiirigelisa dadka aragala والله سيفي عم حس لكن طلعت ما شاء الله قرح بدنا وصار لو كلا فراي tani waa sheekada sooyaalka nololeed ee Fardows Cabdulle Maalin oo lagu garan og yahay indha qalbi وأرضيت أجدد البدن فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون حتى دري تيك توك maanta ay la jooga Shaashaa wariyaha RTN